asalaamu calaykum dhammaan ardada soomaaliyeed waad salaaman tihiin meel walba aad dunida ka joogtaan waa macalin daahir dictionary kuna soo dhowaada cashir cusub cashirkan maanta waxaan ku baran doonaa farqiga u dhexeeya British and American vocabulary ereyada ay adeegsadaan dadka ingiriisiga iyo weliba dadka maraykanka ah ereyo kala duwan ay adeegsadaan marka maanta waxaan qaadan doonaa 20 erey ay adeegsadaan dadka Britishka iyo weliba dadka Americanka erey koowaad football kubadda cagta soccer kubadda cagta football kubadda cagta soccer kubadda cagta football waxaa dhahaa British soccer waxaa dhahaa American children caruurta kids caruurta children caruur kids caruur children waxaa dhahaa Britishka kidsna waxaa dhahaa American holiday dalxiis vacation dalxiis holiday dalxiis vacation dalxiis holiday waxaa dhahaa Britishka vacationna waxaa dhahaa American lorry gaariga weyn ee xamuulka truck gaariga weyn ee xamuulka lorry gaariga weyn ee xamuulka truck gaariga weyn ee xamuulka lorry waxaa dhahaa British truckna waxaa dhahaa American biscuit biscuitka la cuno cookie waa biscuitka la cuno asna biscuit waa biscuitka la cuno cookie waa biscuitka la cuno marka biscuit waxaa dhahaa Britishka cookie waxaana dhahaa American torch waa nalka gacanta flashlight waa nalka gacanta torch waa nalka gacanta loo isticmaalo flashlight waa nalka gacanta lagu qaato torch waxaa dhahaa Britishka flashlightna waxaa dhahaa American jumper waa finaanada dhaxanta sweater waa finaanada dhaxanta jumper waa finaanada dhaxanta sweater waa finaanada dhaxanta jumper waxaa dhahaa Britishka sweaterna waxaa dhahaa American sofa waa kursiga la dhigo fadhiga carbeedka ama kursiga la dhigo fadhiga weyn couch waa kursiga weyn ee la dhigo fadhiga sofa waa kursiga weyn ee la dhigo fadhiga couch waa kursiga weyn ee la dhigo qolka fadhiga ama martida mobile phone waa taleefanka gacanta cell phone waa taleefanka gacanta mobile phone waa taleefanka gacanta cell phone waa taleefanka gacanta mobile phone waxaa dhahaa Britishka cell phone waxaa dhahaa American rubbish qashin garbage qashin rubbish qashin garbage qashin rubbish waxaa dhahaa Britishka garbagena waxaa dhahaa American taxi taxiga la raaco cab taxiga la raaco taxi taxiga la raaco cab waa taxiga la raaco Britishka waxay dhahaan taxi American waxay dhahaan cab headmaster maamulaha principal maamulaha headmaster waa maamulaha principal waa maamulaha headmaster waxaa dhahaa Britishka principalna waxaa dhahaa American toilet waa suuliga restroom waa suuliga toilet waa suuliga restroom waa suuliga toilet waxaa dhahaa Britishka restroomna waxaa dhahaa American flat waa guri apartment waa guri flat waa guri apartment waa guri flat waxaa dhahaa Britishka apartmentna waxaa dhahaa American dustbin waa weelka qashinka trash can waa weelka qashinka dustbin waa weelka qashinka trash can waa weelka qashinka dustbin waxaa dhahaa Britishka trash can waxaa dhahaa American left waa left waxaa waaye maxaa lahaa si elevator oo ka wiishka waaye left waa wiishka la raaco elevator waa wiishka la raaco left waa wiishka la raaco ee dabaqyada elevator waa wiishka la raaco ee dabaqyada left waxaa dhahaa Britishka elevator waxaa dhahaa American sweets waa mamacaan candy waa mamacaan sweets waa mamacaan ama ninacyo sweet waa ninac candy waa ninac ereyga sweet ayaa mamacaan ah laakiin sweet haddii la dhaho waxaa laga wadaa ninac ama nacnac candy waa nacnac sweets waxaa dhahaa Britishka candyna waxaa dhahaa American film waa filimka
movie waa filimka, film waa filimka, movie waa filimka la daawado. Film waxaa dhaha Britishka, moviena waxaa dhaha American. Tap waa afka hore ee tubada. Faucet waa afka hore ee tubada. Tap waa afka hore ee tubada. Faucet waa afka hore ee tubada. Tap waxaa dhaha Britishka, faucetna waxaa dhaha American. Chips waa jibsiga, friesna waa jibsi. Chips iyo fries labadaba waa isku mid. Chips waa jibsiga, friesna waa jibsiga. Ogow, chips waxaa dhaha Britishka, friesna waxaa dhaha American. So arday, waxaan filayaa inaad fahantay ereyada kala duwan ee adeegsadaan British and American. waxaan filayaa arday inaad cashirkan ka faa'iidaystay. Su'aal isku diyaari. Assalaamu calaykum waraxmatullahi